waxaa jira caqabado aad u badan oo ilmaha iskuulada aada ama dugsiyada dhigta ama malcaamadaha run ahaantii ka hor yimaada isla markaana horseeda qaarkood in ilmahaasi uu noqdo ilmo waxbarashadii ku fashilma ama asaagii ka hadha ama noqda goobahan waxbarasho kala duwan kuwa lagu bahdilo taasoo suurtagal ay tahay waalidka badankoodu inaysan ka warhayn haddaba maxay yihiin caqabadahaasi kulanti wanaagsan haddii booqashadaadii koowaad ee channelkan ay tahay fadlan subscribe dheh haddii akhyaarta nagu taxanaad ka mid tahayna wixii su'aalaad qabtid dhinaca hoose ee fariimaha ayaad nagula wadaagi kartaa haddaba caqabadaha markaynu guda gallo ilmaha run ahaantii uga hor yimaado goobaha waxbarasho kala duwan ee ay aadaan ayaa qodobka koowaad wuxuu yahay ama caqabada koowaad ee ka hor timaada in ilmaha uu la joogo ee iskuulka uu la dhigto ama dugsiga uu quraanka kula barto habka quraankan uu u xifdinayo ay tahay mid ay ku kala duwan yihiin taasoo dhacda mararka qaarkood in ilmahan la qabsigeedu inay ku adkaato sidoo kale waxaa dhacda waxa la yiraahdo academic pressure kaasoo ah culays ilmaha uga yimaada habkan waxa loo baranayo ama ha ahaato bog quraan in la siiyo markaan dugsiyada ka hadlayno ama laba bog ha ahaato ama bog haafkii ha ahaato ama aayado kooban ha ahaatee habkan aayadahan quraanka loo xifdinayo iyo waqtiga laga rabo iyo waliba sida uu soo diyaarinaye la rabo waqti kooban inuu ilmuhu quraankii ku soo xifdiyo ama dhinaca kale markaan aynu u dhigno iskuulada oo kale cashirada ilmaha loo diro ee la rabo inay soo fahmaan iyo kuwa la rabo inay soo xifdiyaan sida gabayada Soomaaliga iyo wixii la midka ah in ay ku adkaato ilmahan habkii waxan uu u soo sameyn lahaa in ay caqabad ku noqoto taana ay noqoto culays maalin kasta ilmahan uu la circiirayo lagana yaabo waalidku inuu iska warhaynin midda saddexaad waxay tahay waa lack of motivation ilmihii inuusan haysaninba dhiirigelinba inuusan haysan wax inuu dugsigii aado ama iskoolkii u aado ku riixayo jeclaysiinayo in aysan jirin waxay noqon karaan 4 dhinac ama 3 dhinac bay noqon karaan midda koowaad waxay noqon kartaa in waalidkii ilmaha dhalay uusan ilmihiisaba ka warhaynin oo haddii cashirkan uu ka soo baxo waa dugsiyada quraanka markaan ka hadlayne iyo haddii uusan ka soo bixinba waxaba yaraatee war ah oo uu ka haya aysan jirin taasi waa mid oo dhinaca waalidka sidoo kale haddii marka aynu ka hadlayno iskoolada oo kale haddii ilmahani uu kaalinta koowaad galo iyo haddii uu dhaco iyo haddii uu meel dhexe keeno natiijada imtixaamaadka weeye in waalidka ilmahan dhalay uusan ka warhayn wax keer ahna uusan siinin mustawaha tacliimiga ah ee ilmihiisu run ahaantii uu yahay taasi waa dhinaca waalidka dhinaca labaad waxay noqon kartaa ilmahan goobta waxbarasho ee uu aado waxaa laga yaabaa marka maamulka iyo macallimiinta oo isbiirsaday in iyaguna qayb ay ka yihiin in ilmuhu uusanba u arkin macallinkan iyo maamulkan iskuulka jooga in ardaygani kaalin inuu galo iyo haddii inuusan gelin iyo haddii u dhacaba in wax macna ay isugu fadhin taasoo la dhihi karo waxay u dhacdaa haddii ilmahani kaalin uu galo inaan la promote garaynin inaan la dhiirigelin inaanan ilmahan loo marxabaynin in aan hadiyado la siinin in ardada dhexdooda aan laga sheegin sidoo kale in macallinka laftigiisu uu u arkaba ilmahani haddii uu kaalinta galo iyo haddii uusan gelin iyo haddii muxuu ahaay uu dhacaba waxaba yaraatee macna ah inaysan soo kordhinayn in ilmahan la dhiirigeliyo taasna ay ku keento ilmihii in uusan waxaba yaraatee niyad ah uusan u qaadin ama uusan u qabin inuu iskoolka ama dugsiga aado taasina waa dhinaca labaad dhinaca saddexaad waxay noqon kartaa isla ilmaha iskoolka ee run ahaantii ama fasalka uu la dhigto oo waa maxay haddii ilmahani uu soo dheereeyo nadaafadiisa uu soo ilaaliyo buugaagtiisa uu nadaamsado oo aysan sanadku markuu bilowdo buuggii uu waxbarashada ku bilaabo ay maada mid doontaba ha ahaatee ilaa sanadka intuu ka dhameynayay haddii buugaagtiisu aysan ka googin oo jaldigu uusan ka googin ama uusan baylihinin ama uusan ka buuxsamin ama uusan ka jeexjeexmin agabkii dhammaan waxbarashada la xiriirayna ay ahaato kuwa hagaagsan oo nidaamsan in macallinkii uusan farqi uga dhaxaynin ilmaha noocaas ah iyo kan maalin kasta dhaha maadaama buuggeedii uu iga lumay ama buuggii cashirkii uu iga jeexmay
ama maye qalin ma wato ama maye minqaladii ama kambaskii agabkii ciyaalku ay wax ku baranayeen ama ku sawirayeen inuusan wadin ardayga noocaas ah iyo ardaygan kale in macallinkii wax macno ah aysan ugu difference u dhaxeeya agtiisa aysan jirin taana waxay keenaysaa in ilmahan uusan waxaba yaraatee niyad ah uusan u haynin iskuulka aaditaankiisa iyo inuu u gooyo taasina waxyaalaha run ahaantii caqabada ah ee ilmaha markay la soo gudboonaadaan keenta in goobta waxbarasho wax culus ay ku noqoto dhibaato ah oo uu la loodayo maalin walbaba midda afraad waxay tahay habka habaynta waxbarashada waxay tani keentaa walaalayaal in ilmuhu uusan garan karin ama uu dhibaato ay ka qabsato maadooyinka iyo casharada habka loo kala hormariyo loo diyaariyo tusaale xisaabaadka oo kale uma baahna ilmuhu inuu xifdiyo uma baahna waqti dheer inuu geliyo just wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo wax la yiraahdo focusing oo marka macallinka uu cashirka akhrinayo inuu si fiican u dhageysto cashirkii isla markaas uu ilduufo ama uu arko inuusan fahansanayna isla waqtiga macallinka uu ku celiyo midda saddexaadna marka guriga uu yimaado isla markiiba exercise-kii ama tamaarintii ama shaqo gurigii loo diray inuu ka shaqeeyo isla markaas uu ka shaqeeyo maxaa u hirgelaysa waxa u hirgelaysa in ardayga uu kala fahmo sidoo kale saddex waxyaalood midda koowaad waxay tahay cashirka uu fahmay ayaa u soo baxaysa midda labaad waxa u soo baxaysa cashirada ishkaalka uga jiro wali uusan fahmin midda saddexaadna waxay tahay cashirka totally-ba uusan fahansanayn isla markaa waxa u fudaanaysa in macallinka uu soo laabto marka haddii cashirada qaar ishkaal uga jiraan ama uusan fahansanayn taasi waa xisaabaadkii kuwa kale waxaa jira u baahan isla marka ardaygu cashirka soo qaato in uu xifdiyo sida gabayada oo kale ama cashirada qodobada ka kooban oo kale ama waxyaalaha la yiraahdo tacriifaadka in ilmuhu ay xifdiyaan ama ardaygu uu xifdiyo haddaba xaaladaha noocaas ah haddii ardayga aan la fahansiinin waxa isaga dhexyaacaya habkii uu qorsheyn lahaa duruusta uu soo qaatay iskoolka uu ka soo qaato isla markaana haddii uusan xal u helin ayaa waxay ku noqonaysaa walaalayaal caqabad iyaduna maalinle ah oo ilmihii kor saaran taasina waa qodobka afraad qodobka shanaad wuxuu yahay in ilmaha ay dhibaato ka haysato dhinaca maskaxda oo ilmo maskixiyan u xanuunsan ama u dhibaataysan uu yahay laakiin waalidku uusan fahansanayn taasina waxay u baahan tahay macallinku inuu xil iska saaro waalidku inuu xil iska saaro cidda maamulka ka ah iskuulkan ay xil iska saarto waayo markastoo ilmahani uu yahay ilmo mentally u xanuunsan ama socially dhibaato ay ku tahay bulshada inuu dhex galaba markaas ay ku adag tahay waxa adkaanaysa walaalayaal in uu ilmahani xamilo ilmahan ku dhex jirkooda ama ardaydan kala duwan ee u dhex fadhiyo inuu xamilo taana ay keento in ilmuhu ay caayaan ama si gaar ah ay u karantiilaan ama asaga waxa dhibka ku ah uu noqdo arday aan ka hadli karin gabagabadiina ay keento ilmahaasi inuu waxbarashadii ka haro midda kale waxay tahay walaalayaal ee qodobka kale ah ee waxa la yiraahdo ama peer pressure waa maxay waa cadaadiska ilmaha ka fuulaya cid muxuu ahay ardada la da'da ah ama cidda uu wax la baranayo waxay taasi keenaysaa marka in mararka qaarkood oo dhacdaba in ardada ama iskoolka ardada jooga walaalayaal ama caruurta jooga inay isgurubaysigaasi waxaa dhacda marka inay mararka qaarkood ilmahan ay ku keento negative consequence waxa la yiraahdo inay ilmihii si xun u saamayso oo u arko qof ardadii aan la mid ahayn inuu arko ardadii kale laga dhex saaray inuu isu arko ardadii kale aan la jaan qaadi karin inuu isu arko ardada kale aan la qabsan karin ama aana ka midba ahayn oo si gaar ah loo soco taana waa maxay waa caqabad isdacaysiga ilmaha markii ay iskoolada joogaan ama dugsiyada ay joogaan ay la kulmaan loona baahan yahay waalidku inuu u feejignaado lana muxuu ahaay run ahaantii xalliyo ilmihiisa midda kale walaalayaal waxay tahay waxaa la yidhahdo friendship issues waa maxay waa saamaynta ilmaha uga imanaysa cidda uu kula saaxiibayo goobta waxbarasho caqabadaha noocaas walaalayaal waxay keentaa mararka qaarkood in ay ilmahan ku keento in mar kastaba stress uu iskoolkii ka dareemo ama dugsigii uu ka dareemo oo waa maxay waxaaba ilmahan la fariistaa arday akhlaaqiyan u liita arday anshax ahaan u hooseeya
ilmaha kaloo caaya waalidku caaya waxaa laga yaabaa in maalintaas oo dhan inta iskuulka uu jooga ma inta kale oo dhan inuu bombalayaal iyo filimaan iyo waxyaalo daran uu soo daawanayo isla marka uu soo laabto marka wuxuu isku dayaa ilmahani in uu ku practical gareeyo goobtii waxbarasho ilmahan kale marka maadaama uusan ilmahan kale la jaan qaadi karin waxay caqabad ku noqonaysaa ilmahan la fadhiya dhibaatooyinka ooga imanaya sidii uu ula tacaali lahaa mid waxay noqonaysaa walaalayaal in ilmihii uu ka koobiyeeyo ama uu ka dhaxlo ama uu ka barto dhaqan xumadii ilmahan la fadhiyay waa habka markaan u eegno ilmahan markii uu dhinaca akhlaaqiyan u liitay ilmaha la fariisanaya waxay kaloo noqon kartaa in ilmahani dhinaca positive-ka markaan ka fiirino inuu yahay ilmo intelligence ah ilmo IQ-giisu uu sareeyo isla markaana fakta koowaad casharka la sharxaba isla markiiba fahmaya ardaygani laakiin asagu uusan fahmi karin saadaraad laga yaabo macallinku inuu la jaan qaadayo marba ardayga fahankiisu uu soo degdego ogaadana ma jiro waxa la yiraahdo arday damiina ma jirto laakiin waa maxay fahankaas soo kala hormara xaaladda noocaas marka waxay keentaa ardaygan la fadhiya inuu caqabad joogto ah oo maalin kasta ku taagan ay ku noqoto waxaa kaloo dhacdo walaalayaal oo iyaguna ka dhacay iskoolada in ilmaha la fadhiya gurigooda si fiican looga soo agaasimo loo soo nadaafiyo nadaafad fiican la soo siiyo waxa uu baahan yahay oo dhan boorsada loo soo geliyo shukulaatooyin la soo siiyo buskud la soo siiyo sharaab la soo siiyo cuntadii uu cuni lahaa la soo siiyo ilmahan kalena iska daa waxa kale xataa agabkii wax ku baran lahaa inaysan u dhammaystirnayn ilmahan marka wuxuu maalin kasta la daala dhacayaa inuu isweydiiyo waay ilmahan kula fadhiya wax kasta oo u baahan yahay boorsada ay ugu jirtaa adigana aysan kuugu jirin taasoo noqonaysa iyaduna run ahaantii arrimo ilmahan fasalka fadhiya maalin kasta uu kala kowsado isla ilbriqsiga uu fasalka soo galo lagana yaabo waalidku inuusan ku baraarugsanayn sidoo kale waxaa jirta walaal caqabada kale jirta iyadana waxay tahay in ilmuhu uusan lahayn xirfadii oo ilmaha kale kula falgeli lahaa ilmahan guriga markuu joogay ayaa waxaa laga yaabaa inuu ahaa ilmo haliyey ka ah guriga wax kasta uu sheegto la siiyo muxuu ahaaye wax kasta uu rabo loo ogolaado wax kasta uu diidana laga daayo aan lagu khasbin taasi marka maxay keentaa ilmahan markii fasalka uu yimaado ee ardada kale uu soo dhexgalo inay ku adkaato inuu la jaan qaado ama uu la falgalo ardadii kale ee fasalka fadhiday taasoo iyaduna noqonaysa dhibaato ilmahani uu la loodayo isla markaana ay ku adkaanayso in uu ka fogaado saameyn weynna ku yeelanaysa habkan ilmahani uu awood ugu yeelan lahaa in ilmahan ka duwan ee uu soo dhexgalay kooda xunna uu isaga ilaaliyo kooda wanaagsanna uu ula falgalo sidoo kale waxaa jira walaalayaal caqabada kale jirta iyadana waxay tahay stress guud oo ilmaha run ahaantii la kowsada markii iskuulka uu ku soo biro ama uu dhiganayo taasoo keeni karto environmentiga iskuulka uu ku yaalo in ilmuhu uusan ku ladaynin oo waxaa ka mid ah ilmahani naqas inuu qabo ama inuu xanuunsan yahay ama araga ilmuhu uusan si fiican uusan u ahayn sabuurada markuu rabo cashirka inuu ka dajiyo inuusan si fiican u arkayn lagana yaabo maamulka iyo macallimiinta iskuulka dhigay ardayga wax u dhiga ama agaasima inaysan hawsha noocaas ku baraarugsanayn marka waxay taasi keenaysaa walaalayaal in ilmahani deegaankii uu ku yaalay ama fasalkii cunigan uu dhiganayay in uu sabab u noqonayo in ilmihii uu ka haro iskuulkii sababtuna ay tahay caqabadan joogtada ah ee la xiriirta caafimaadka ilmaha in ay dhibaato ilmuhu uu kala kulmayo ama habkii qorista ee cashirkan uu sabuurada uga dejin lahaa in ilmihii ay dhibaato ku tahay oo ay tahay dhibaato maalin kasta uu la joogo lana nool yahay isla markaana uusan ka gudbaynin sidoo kale waxaa dhacda walaalayaal sidoo kale in stresska ilmaha uu ka haysto iskoolka ciyaal dhib badan oo ciyaalka laaya inay fasalka la fadhiyaan oo mar kasta uu fasalka soo fariisto in buuggiisa laga jeexo qalinkiisa laga qaato agabkii ugu jiray meesha markii bareega uu baxo lagala baxo wixii ugu jiray ama buskud ha ahaato ama cunto ha ahaato ama qalab ha ahaatee iyadoona ugu jirin uu ku soo laabto cid uu dacwoodo iyo hab loo dacwoodo iyo wax meel la mariyana uusan aqoonin taana maxay keentaa waa caqabad kale ilmihii keentaa stress joogto ah inuu iskuulkii ku noqdo sidoo kale waxaa dhacda walaalayaal iyaduna in ilmaha garaaca markii fasalka banaanka looga baxo ilmuhu ay baxaan waa ilmaha basaska aan raacin
in ay dhacdo iyadana oo waa maxay markastoo banaanka looga baxo iskoolkii in ilmihii banaanka loo taagan yahayba oo laba la isugu tagayo la dilayo la garaacayo la bahadilayo waalidkii muxuu ay la jaa'ifaynayo taana waxay keentaa iyaduna stress karo joogto ah oo ilmaha dhibaatooyinka iskoolada ku haya ama uu kula kowsanayo ay ka mid tahay macquulna ay tahay waalidku inaysan ka warhaynin sidoo kale waxaa dhacdo walaalayaal oo dhibaatooyinka ilmaha iskoolada ka qabsada ama goobaha waxbarashada waxaa ka mid ah walaalayaal in ilmuhu ay dhinaca waalidka dhibaatada ay ka haysato oo waa maxay ilmahan waalidka aabaha oo ah ama hooyada oo ah inaysan garan karin ilmahan sida wacyigooda loo dhiso sida ilmahan farxadooda loo dhiso sida ilmahan loo kolkooliyo si maskaxdooda iyo garaadkooda ay u dhisanto oo waa maxay markastoo ilmahan iskuulka uu ka yimaado ama dugsiga uu ka yimaado walaalayaal waa ilmo daalan waa ilmo bulsho ka soo dhex baxay waa ilmo u baahan in laga neefiyo la waraysto la dhaho hooyo ama aabe maxaa kugu dhacay maxaa maanta la soo kulantay oo haddii ay muruga ka muuqatana la waraysto la dhaho maxaa kugu soo dhacay haddii uu faraxsan yahayna farxaddii lala wadaago la dhaho maxaad maanta la soo kulantay taasi marka badanaa ilmaha Soomaaliyeed walaalayaal lama kulmaan mana haystaan marka uu ilmahani soo galo iskuulka uu ka yimaado isla markaba wuxuu la kowsadaa obligations wuxuu la kulmaa ama ruu la kulmaa wariyaa dharka bixi wariyaa boorsada dhig wariyaa kabaha bixi wariyaa soo qubayso wariyaa qadee wariyaa seexo wariyaa saanyeel iyo wixii la mid ah laakiin marnaba waalidka inuusan ka maqlin wiilkaygiyo ama hooyo maxaad maanta fasalkii kala soo kulantay wixii kugu yaabadnay maanta aad soo aragtay maxay ahayd ardadii maxaad maanta miyaad isla ciyaarteen macid baa isdagaasheen macid baa muxuu ahaay casharadii muxuu ahaay aad qoranayseen tartan baad gasheen iyo wixii la mid ah inuusan la kulmine ama uu la kulmo taana waxaa dhacda waa arrimaha ilmuhu waalidka ay kala kulmaan isla markaana ilmaha ku noqota culays kale oo run ahaantii uu garan kari waayayo ciddii uu kala ciirsan lahaa sidoo kale waxaa dhacdo walaalayaal oo dhibaatooyinka ilmaha haysta ka mid ah ee goobaha waxbarasho open communication xiriirka iska furan oo wuxuu yahay walaalayaal marka qaarkood waxaa dhacda ilmuhu inuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo isla markaana la siiyo xiriir furan oo u dhaxeeya ilmaha iyo waalidka u dhaxeeya ilmaha iyo macallimiinta u dhaxeeya ilmaha iyo ilmaha kale si loo xalliyo dhibaato kasta oo ilmaha dhexdooda ka dhaca waxaan ka wadnaa ilmaha waxaa laga yaabaa dhibaatada haysatay markii uu fasalka soo galo inay tahay caqabad ka haysata dhinaca in uu gudbisto asaga waxa dhibaya ama waa arday qajilaad badan ama waa arday haddii la dhibo oo cid kale ay wax u geysato aan sheegan karin maxaa la rabaa marka macallinkii xiisadda u dhigaya ilmahan inuu ilmihii furfuro inuu la sheekaysto inuu wax weydiiyo inuu u diyaariyo ilmahan inuu ka hadli karo waxa dhibaya iyo waxa isaga uu ku faraxsan yahay inuu ilmuhu sheegan karo waxan asaga ahaan ka gooxaya in haddii ilmuhu xataa qaarkood waxaa dhacda walaalayaal in xataa macallinka haddii uu khaldamo waa bani aadam robot maaha macallinku xisaabaadka markuu qorayo wuu khaldi karaa ayadaha quraanka markuu akhrinayo si laxana u sheegi karaa waxbuu ka boodi karaa jawaab khaldan buu qori karaa malaa'ig ma aha macallinku waxaa laga yaabaa marka ardayga inay u muuqato wax khaldan haddana kalsoonidii uu macallinka kula hadlahaa ma haysto dhinaca kale markaynu u dhigno taas marka maxay keenaysaa open communicationkii ama xiriirkii furfurnaanta ahaa ama furnaa ee la rabay in macallinka iyo ardayga ay dhex maraan ama macallinku inuu u diyaariyo ardayga iyo arday kale inay dhex marto inuu meesha ka baxo waayo maalinta ay dhacdo ilmahaas in jac lagu dhajiyo maxaa bilaabanaysa inuu ilmihii difaac galo oo uu iska ilaaliyo jac dambeeyaysa kugu dhigin tani way ku qabsatay taana waa caqabadaha kale ee ardadu markii iskuulada dhiganayaan walaalayaal weliba da'yartu arrimaha noocaas ay qabsadaan ama caqabadaha qabsaday ka mid tahay caqabadahaasaan dhigi karnaa walaalayaal way ugu waaweyn tahay balse waxaan rabaa inaan kusoo koobo muuqaalkan walaalayaal in waalidka loo baahan yahay in caqabadahaas aan soo sheegnay ay u dhug lahaadaan aragti dheer u lahaadaan lana socdaan waayo taasi waxay keeni kartaa ilmahaaga oo tooja ay ku socoto tacaddi ilmahaaga uu ku socdo faquuq ilmahaaga iyadoo ay ku socoto bahadilid ilmahaaga oo ay ku socoto
garaac toos ah oo mid maskaxiyeed aan ahayn mid jir ahaaneed ay ku socoto iyo waliba mid maskax ahaaneedba inaadan ka warhaynin oo maalin kasta aad la soo taagan tahay kaliya waryaa maxaa dugsiga u aadi laadahay maxaad iskuulka u aadi weyday iyo maxaa dugsiga u aadi weyday oo aadan garan karin waalidow sababta ilmahani uu uga soo taagan yahay dugsiga inuu aado iyo inuu iskuulka aado balaayada u diidan inaadan garan karin lowlaa aad ogaan lahaydna inaad ilmahaaga u garaayb lahayd oo garab aad ugu ahaan lahayd ilaa aad dhibaatadaas meesha aad ka saartidna inaadan la deen laakiin dhibaatada ku haysata waalidow ay tahay inaadan waxaas oo dhan aadan ku baraarugsanayn haddaba waxaan waalidiinta walaalayaal kula dardaarmaya dhibaatooyinkaas iyo kuwa ka badan ayaa iskoolada ka dhaca kana jira hadda ka jiri jiray kana jiri doona iyo dugsiyadaba lana rabo waalidka inay arrinkaa ka warhayaan haddii kale waxaa guriga kuu joogi doona ilmo bahdilan oo maskaxiyan u dhintay jir ahaanna u dhintay adiguna aadan ka warhayn qiyaamahana ilaahay uu ku weydiin doono laga yaabo cadaab inaad u gashid aad baad noo mahadsantihin haddii booqashadaadii koowaad ee channelkan ay tahay fadlan subscribe dheh haddii akhyaarta nagu taxanaad ka mid tahayna wixii su'aalaad qabtid dhinaca hoose ee fariimaha ayaad nagula wadaagi kartaa